goorma bilowday kugu soo maaxatay inaad horta maartay nin suugaanta soo dhaxgalo oo gabay sameeyay farxada wuxuu ugu bilaabatay aad ma sanad marka hore saacadii aan inta laftii inaan hadii koroota kula kulmo hadana aan asxaabtaada hadii koroota maanta aan hor fadhiyo sharaf gooniyay waan kaaga mahadcelin maadaama nin la jana adigana aan taageero ku xirnaatay waan kaaga mahadcelin hadii aan su'aashaada u gudbo farxada waxaan soo bilaabay anigu aad u yar baan soo bilaabay inaan wax tiriyo fahamsan inta baad ka siiyay hadda yar tahay hadda laakiin horta dadka ma sha Allah aad u koreeya anigu waxaan dad walba sheegan kar ma fahamsan لكن نوين بان هم فاهم لكن انا سغال كده مقرنا سياسه سغال كده ايام بلاو ina waqti marka maxaa kugu dhaliyay marka qofku waxa ku dhaliyay ma inkastoo waxaan hiba ay tahay laakiin xagee kala qaaday suugaan waxaan kala qaaday handul ku rooyahay dadku handul ku rooyahay waxaan ka rabnimada iyo magaranaysaa qofka caqliga ilaahay baa dadka ku dhaliya anoo yar baan waxaan dareemay magaranaysaa burburka dalkeena ka jira iyo sida la isku leynayo iyo dhibaatada ka jirta ayaan dareemay dabadeed handul ku rooyahay gabay baa igu soo dhacay oo sameeyay tolay yiraahdo tolay marka dhibaatadii wadanka jirtay waxaan aragtay ayaa ku taabatay sida la isku leynayaan hadana anoo gacala marka waxaan arkay ayaan kabigaas tolay marka maxaa tiri marka tolay toban baan jira markaas aan gabi tiri tolay iyo toban marka waa isqaadatay maadaama gabaygu xaraf ku bilowdo ku socdo ahdiya suugaantu xaraf ku socda marka waxaan iri abdiyowtaadi gabay hadaan tala yar kaasiyo niman baad taban taabinayo toosna garanay niman baad waxaan bixin garano tala ka hoostaay ansa anigu halkaan taabtay waan turuqa leefsiini iga tiri maan dhawaadan ku tirinayaa tixda gabay tiiraayada islaatu gobanaysa tabta ereyga qalbiga ugu taabashadaydii anigu tilaabada qaadin baan soo tifdhigayaa iga tiri maan dhawaadan ku tirinayaa wallahi Soomaaliyeed tala naga hoostay 70 ruux jiray miyuu nabadiga tuura aqliga intuu tumiyay miyuu qabiilka laalaya mutagu jirto la ilaahay haatan la taagan wallahi Soomaaliyeed tala naga hoostay tartantii dunida ka soo cirka taabanayso ayay aqoontii dadka laga taaban intuu kala gaxeysay tawbiyaha fuulay wallahi Soomaaliyeed miyaa tunka kaga jeefna macna gabaygaas u dheeraa waqti hore aan tiriyay laakiin waxa la yaab leh abwaano in adigoo 10 jira aadana leedahay ma 10 jir tolaaye leh ba haatan ila taagan 70 ruuxii jiray miyuu nabadiiba tuuray waa halkaan ka arkay aniga odayaal waaweyn oo arkay anoo reer hebela ma aniga handur seen maninkii dilay soo qaatay qoriina nacalla in ku oolu waay ma garanaysaa odayta ducaatin jirka ayaa wuxuu handul ku maleeyaa dhalinyaradii inta badan dhalinyaradii ayagana hadii minaadarkii baa dilaha waxba hubsamaye dabadeed markuu shaydaanku tuuro qofku qof dilo markaas ogaanaya shalay bilaabaya ma garanaysaa marka 70 ninkii jiray odayaashu waa weynaana yani waxaas handul intaas madax soo galiyaan dhalinyarada in yar oo badanna waxaan leeyahay marka waxaan ku yiri ana handul ku waxaan iska soo qaaday anigana sida nabadda doonayo iyo si in Soomaaliya isku timaado isku duubnaato hal mid waliba markaas handul ku rooyahay qurban casta warba waaweyn oo wali uma dhicin qurban casta way ma tagin qurban casta marka ay tagtiin wax badan baa si ugu heynaysaa yani maxaad ula jeedaa qurban casta waxaan ugula jeedaa handul ku rooyahay Soomaaliya marka ka soo baxo oo sidoo kale handul ku ama Ethiopia ama Kenya oo kale ama handul ku Afrikadan kale ma aragtay dawladaha kale oo la dariska marka timaadin macnaheedu kala dhamaynta iyo nidaamka iyo dawladnimada marka aragtiin iyo dadku sidii handul ku rooyahay Kenya baan inta badan waqtiga aan ku soo qaatay in badan joogay hadda marka inta oo qowmiyadood baa degan anaguna hal qowmiyad baan nahay hal afna waan ku hadalnaa hal diinna waan leenahay hadana waan heshiin weyn ma fahantay marka taasaan handul ku iga keentay ma garanaysaa gabayga tolay inaan